جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan jeclaystay caawa inaan idinla wadaago anoo idinka raali gelinaya barnaamijku dib u dhaca ku yimid duruufo jiray awgood. kelmad aan isleeyahay ilaa 4 ilaa 5 qodob bay ka koobnaan doontaa. kelmadda waxa ugu horeeya ama qodobka koobaad waa shayga la yiraahdo dhiirigelinta. dhiirigelintu waa awood dareen oo sabab u noqotay inaad wajahdid xaalad kasta oo adag oo nolosha ku soo marta. hal dhiirigelin ama hal guubaabo oo qof siisay maalin ayaa waxa dhici karta in maalmaha noloshiisa ka hartay oo dhan ay isbedel weyn ku samayso. sidaa darteed ha yaraysanin in aad dadka dhiirigelisid oo ku dhiirigelisid waxa horumarkooda ku jiro. dadka markaad dhiirigelisid oo ay sameeyaan wixii aad ku dhiirigelisay oo noloshoodu ay hagaagto horumarto, waxaad ogaataa naftaaduna way horumaraysaa. sidaa darteed ha yaraysanin in aad walaalaha marnaba inaad dhiirigelisid ha yaraysanin. qodobka labaad, haddaad doonaysid cid noloshaada bedesha oo cabsida iyo caajiska haya uga gudbisa nolol hagaagsan, farxad, firfircooni iyo geesinimo leh, waxaan kuu sheegayaa qofkaa meelnaba ha ka doonin, waa naftaada. naftaadu waa cadowga koobaad ood leedahay. 200 wax kaama dhinto, laakiin naftaada oo keliya ayaa waxaa dhici karta inay ku jabiso ood nolosha la tallaabsan kari weydid. in fara badanna waxayna haysta maanta oon horumarka la gaari la'nahay waa cabsida nafteenna ay qabto. qofku wuxuu ka nool yahay qalbiga. hadduu qalbigaaga cabsi ku jirto, haddii qalbigaaga ay ku jirto sidee la ii arki doonaa, haddii qalbigaaga ku jirto maxaa talow dhici doona, haddii qalbigaaga ku jirto hadal shalay lagu yiri, haddii qalbigaaga ku jirto natiijo xumo mar hore ku soo martay iyo wixii la mid ah, oo waxyaabaha keena in qofku uu marnaba u dhaqaaqi kari waayo isagoo og oo dareemaya oo u jeeda oo arkaya in hadduu shaygan sameeyo noloshiisu ay farxad iyo horumar gaarayso. sidaa darteed aynu ku dadaalno in aynu nafteenna kobcinno oo nafteenna u aragno inaysan naf liidata ahayn. qodobka saddexaad, ha ka sugin inay cidina isugu kaa toosiso noloshaada. si kasta oo ay noloshaadu hagaagsanaanta iyo farxadda uga fog tahay, ood u dareemaysid naftaadu inay hoosayso ama ay liidato ama dadka kale ay ka hoosayso, waxaad ogaataa meesha ay joogto adigaa geeyey. intaa ka sii hoos iyo ka daran adaa geyn kara. meesha meel ka sarraysa oo intaa ka soo horjeedkeeda ahna adaa geyn kara. laakiin waa hadba sida naftaada aad adigu u aragtid. haddaad naftaada u aragtid in dadku ay ka fiican yihiin, haddaad naftaada u aragtid in dadku baabuurtay wataan ay kaa fiican yihiin, shaqaday haystaan ay kaa fiican yihiin, sida ay u hadlayaan inay kaa fiican yihiin, hiblaayo ninka qabaa inuu ninkaaga ka fiican yahay, adigu aad aragtid hebel xaasku qabaa inay xaaskaaga ka fiican tahay, haddaad aragtid dharka adigu labiska aad gashan tahay in uu qofka kalead arkaysa uu kaa qurux badan yahay, haddaad aaminsan tahay xoolaha bangiga kuu yaalla ama intaad haysatid inuu hebel intuu haysto aad haysan lahayd, haddii mar walbaba aad sida kelmaddii ugu dambaysayba aynu ku soo qaadanay, haddaad mar walba arkaysid muraayadda markaad isku fiirisidba aad arkaysid qofka muraayadda ka dambeeya eedan arkaynin muraayaddani waxay ku tusayso oo ah naftaadan hortaagan, taas waxay sabab kuugu noqonaysaa inaadan horumar gaarin. qodobka afaraad, markay noloshu kugu dharbaaxdo caqabad oo aad dareemaysid sidii inaysan lahayn xal, doorashada ada iska leh. inaad indhaha kala furtid, adkaysi soo bandhigtid, allah subxaanahu wa tacaala aad tala saaratid, ood ku dhaqaaqdid sidaad uga bixi lahayd intay doontaba ha kugu qaadatee, iyo inaad rajago iyo quus ku noolaatid. waa shay doorashadeedu adigay kuu taallo. dadkuna waa intaa. dadka qaarna gacmahay ka laabtaan markay mushkiladii ku timaado, ma doonaan xalka ee gacmahay ka laabtaan, kadibna waxay rajeeyaan inay xaaladdu iyadu isbedesho. ismana bedelayso, inay ka darta ma ogiye. taasaa keenta qofku inuu sida qodobada ku xiga aan ku maqli doono in qofku uu niyad jab ku noolaado.
sidaa darteed mar walba dadaal waxa ku anfacaya ku dadaal waxa dantaadu ku jirto ku dadaal naftaadu yay ku jabin oo meel ku dhigin naftaadu yay dareemin inay daciif tahay oo ay ka hoosayso bini aadamka kale oo dhan marmarka qaarna wax aad u yar ayaa waxay kuugu muuqanayaan wax weyn ama buur aan laga tallaabi karin waqti bay weliba ku qaadanaysaa qofku inuu ka fakaro shayga sidaa darteed tusaalahan ku siiyo jirku wuxuu ku koraa oo ku cayilaa waa cuntada aad cunaysid ayaa jirkaagu ku koraa oo ku cayilaa dhibaataduna waxay ku ballaarataa oo ku cayishaa oo ku buurataa oo wax weyn ay ula muuqataa waa waqtiga aad ku bixinaysid haddii maanta gurigaaga mushkiladay ka taagan tahay guurkaagii baa burbur ku dhow haddaad mushkiladda taagan keliya ka fakartid meeshaad u isticmaali lahayd fakarkaaga xal sideen ku keenaa maxaase xal ii ah maxaa ila gudboon maxaan sameeyaa oo wanaag ah haddii aad uun ka fakartid mushkiladda markaa taagan mushkiladdu way weynaanaysaa waxay kuugu muuqanaysaa maalinba maalinta ka dambaysa marka mushkiladdu waxay ku korto oo ku kobocdo waa ka fakarkeeda waxaa keenayana waa inaad negatifeka aad fiirinaysid keliya laakiin haddaad fiirisid inta wanaagsan ee ka hartay caana qobtay dabadooda la qabtaa bay Soomaaliya tiraahdaa inta yar ee wanaagga ka hartay arrintan haddaad qabatid kadibna aad ka fakartid sideen intan u koriyaa way koraysaa waxaa kuu soo baxaya wanaaggeeda waxay kaa qaadanaysaa waqti aad u kooban xalna waad u heli karaysaa marka mushkilad hadday kugu timaado fakarkaaga ha ku badinin waxaad in badan fakarka gelisaa sideen xal ugu keenaa sideedana macnaha niyad jabku waa arrin sidii aad filaysay aanu dhicin maxaa yeelay xaqiiqada inay wax isbedeli karaan dadku inta badan kuma noola haddaad u aragtid 100% inay saa noqonayso tusaale ahaan waad guursatay waxaad aamintay 100% gurigani waa guri toosan oo hagaagsan oo farxad leh oo murugo lahayn kadibba waxaa soo baxay caqabado yaryar fakarkoodii baa ka bacdina aad ku mashquushay wax weyn oo aan laga gudbi karin bay kula noqotay taasaa keenaysa marka in aad marka horeba u haysatid inaan waxba isbedeli karin waxaan kuu sheegayaa xaalad kasta oo maanta ku sugan tahay oo farxad iyo barwaaqo leh noloshani way isbedeli kartaa si lama filaanay weliba isu bedeli kartaa sidaa darteed 100% waxaad ogaataa 70 inay hagaagi karto 30 ka soo hartayna inuu isbedeli karo taasaa markaa waxay ku siinaysaa nolol miisaaman oo farxad iyo qanaaca ay ka buuxdo waxyaabaha yaryar ee aan macnaha lahayn yaysan kaa dilin abateedka aad u haysid inaad ku noolaatid nolol hodan ku ah farxad naxariis karti xoolo iyo qanacsanaan noloshuna sideedaba dhib ma aha ee waa xaqiiqo dheefteedu ay khibrad cusub ku baraysa maalin walba waxaana ku gabagabaynayaa ha u ogolaan cidina inay kaaga waranto naftaada dadku way hadlayaan ha u rumayn beentooda waxay ku oranayaan waxa ma baran kartin waxay ku oranayaan ma guursan kartin waxay ku oranayaan xoolo ma lahaan kartin waxay ku oranayaan ganacsi ma leh ma samaysan kartin waxay ku oranayaan adigu uma dhalan hadalladaas oo dhan waa been oo siday been ku tahay waxay been ku tahay adoonkani wuxuu rabaa inuu kaaga waramo awoodda qofnimo iyo kartida Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kugu dhex duugay ha ka filin inay bini aadamku kugu raacaan wax walba nolosha sugin qofka aad nolosha la wadaagtid xataa inuu shay walba kugu raaco nolosha waxaan shaki lahayn bini aadamku wax fara badan oo ku saxsan tahay inay ka reebayaan waxay isku dayayaan inaad ka gaabisid maxaa yeelay xasadka badan hadduu qofku yiraahdo waxa ma samayn kartid hadalkaasu waa beentiis laakiin cidda kaliya u rumayn kartaa waa adiga markaynu nafteena qiimayno oo miisaanka saarno oo Allah subhanahu wa ta'ala qiimayntii uu ina qiimeeyay nafteena iyo qiimuhu u yeelay aynu u yeelno oo aynu isaga tala saarano oo go'aan iimaan iyo kalsooni ay nafteena aynu ka buuxino oo nolosheenu markaa ay noqoto nolol aynu ku qanacsannahay nolol isu dheelitiran
marka ayaan waxaan dhadhamin karnaa waxa aan ugu yeero macaanka nolosha. subxaana rabbika rabbi alcizati cama yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.